ninkii la odhan jiray John Lewis oo geeriyooday bishii 17 2020 ayaa waxa laga hayay marka aad aragtid waxaan sax ahayn dhexdhexaad ahayn cadaalad ahayn waa inaad kor u hadashid ama waa inaad kor u hadashaa halka kaaga baxay arrin weyn baa halka ku duwan runtii isagoo hadalkaasu iigu muuqday garya dow ayaan tixdan ana curiyey 3 cisho ka hor suryo oodan baan galay sakal aan la mari karin waana 7 colaadeed saxalkii iyo xanuunkuna soonaha ku badan yahay oo COVID-19kii dhulka sarac la beertiyo saxar iyo sabuul ma leh maal sabada daaqiyo marti sooriyadii ma leh waana salow abaareed koonfur ilaa waqooyi ilaa bari galbeed waxaa ku yuurursaday Soomaaliya oo idil maanta waa abaartana waxa saari karta maamulsan iyo dawlad sanbaa ilaahay awoodiisa marka laga yimaado ilaa abaaru wax soo jireen bay ahaan jireen dawladnimo laga bixi jiray hase yeeshee maanta ma jirto dadku samafalkii iyo sifihii wanaag ma leh inta suurka xidhanee qooraha wax suratiyo inta suufka tolotaba labaduba samaan ma leh samataliskii dadka kala dhex geli jirayna maanta waa dhif iyo naadir saansaanta muuqdaa sacab iyo mashxarad iyo qosol laguma suuray waase suudi iyo bayl surmi iyo abaar surmi iyo haraad badan wuxuba wadab iyo gaas la isku siraaday noloshu idilkeedba weynoo samata bixiyo saacida wax mooyee salligii iyo furaashkii labadaba salkoodii isa seegni weeyaan weynihii lagu samata bixi jiray allihii weynaa ee lagu samata bixi jiray oo sufurta qaada mooyaane oo awalba sida caadiyanka ah weynuun baa wax samata bixin jiray hase yeeshee bulshada Soomaaliyeed meel kastay joogtaba tamar iyo taag badan ma ilahaan jirin awalba iska xoolo dhaqatay yihiin inta samataliska ah haddii colaado dhacaan ayaa lagu bixi jiray hase yeeshee waxqabadkooda iyo gaashaankooda iyo daraskooda mustaqbal wax iska kooban buu abad baahan jiray iyadoo tii na maanta waa la waa marka weynun baa dee laga sugayaa gargaarkiisii joogtada ahaa mar walba uu ku nooleysan jiray dadkan iyo dalkan ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogtaba way dadka Soomaaliyeed way isku wada duruuf kala dal iyo deegaan ba la baxaan